السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرت دمانتي وسلامي ولكن محمد جامع إن شاء الله تعالى waxaan sii wadan doonaa taxanaheeni ku saabsanaa maalgashiga cryptocurrency-ga iyo coinka la danaynayo ee muddada dhow insha Allah tacaala laga faa'iidi karo kulay coinkan iyo kategoriyada aan ka hadlayo imika intooda badan sarakac amba meel sare ay joogaan marka mar walba waxa haboon marka wax la maalgashanayo amba la iibsanayo in laga qaato meelo hoose taana insha Allah tacaala waan ku dhiirigelinayaa sababta aan taxanahan u sameeyayna runtii walaalo far badan ayaan garanayn coinka iyo majaalada mucayanka ah ka faa'iidi karaan haddii cryptocurrency aad ku cusub tahay aanad wax macluumaad aanad ka hayn waxaan ugu talinayaa fiidiyogan inaad daawataan aad halkaa ku aragtaan channelka ayuu ku jira dib u raaca channelka waxyaabo fara badan waad ka heli doontaan insha Allah tacaala channelka haddaad nagu cusub tahay soo dhawow like iyo share iyo subscribe channelka insha Allah tacaala noo saar akhyaarta channelka inta badan waxaa kaga hadlaa waxyaabaha cryptocurrency-ga calaaqada leh iyo caalamka finance-ka iyo sida fursadaha jira looga faa'iideysto soo dhawaada majaalkan ka hadli doono maanta wuxuu ku saabsan yahay AI iyo big data AI du waxa weeye artificial intelligence horena waan uga hadlay oo channelka dib u raaci kartaan big data waxay ku saabsan tahay xog ururinta iyo qaabka xogaha blockchain-ka dhexdeeda ay u marto iyagoo technology-gooda la adeegsanayo datadan waxa ka wada macluumaadka ay shabakadaha kale u gudbinayaan maadaama blockchain-ka uu yahay technology-ga coinka intooda badan ay ku dul dhisan yihiin runtiina waxa weeye laba majaal amba laba category oo aad iyo aad imaka dadku ay u danaynayaan si waalana suuqa imika u dhaqaaqay sidan sheegay hadda maaha waqti wanaagsan oo la galo waa in la sugo coinka ugu muhiimsan iyo tokenadana insha Allah tacaala waan ka hadli doonaa waliba dhamaadka fiidiyoga waxaan ka hadli doonaa 2 ilaa 3 coin oo isleeyahay meel wanaagsan waa gaari karaan waliba labada coin waxay shabahaan coin oo si wanaagsan u dhaqaaqay ka fiidiyoga waxaan rajeynayaa inaad dhamaystirtaan arin aad iyo aad muhiim ayaa jirta akhyaarta intaynan AI-da iyo big data-da coinka ugu muhiimsan aan ka hadal kategoriyadu waxay leeyihiin wax la yiraahdo market cap oo halka laga qiyaaso meesha ay gaari karaan mustaqbalka marka kategoriyadan aan ka hadlayo runtii sababta loo danaynayo waxay calaaqad la leedahay lacagta soo gali karta oo imaka history-ga dib hadaynu ugu laabano berigii internetku ku cusbaa caalamka oo internet ka shaqeysa ayaa soo baxday beriga market cap-kooda iyo lacagta soo gashay berigana lacag aad iyo aad u weyn bay ahayd sawirkan aan ku aragno lacagtaasi waxay gaaraysay 5 trilyan oo dollar lacagtaasna waxay lacag aad iyo aad u fara badan marka taasina waxayna tusaysaa amba fikrada inaga siinaysaa majaaladan kala duwan ee imika ku cusub caalamka lacagta soo gali karta inta ay gaari karto tusaale hadaynu ka soo qaadno 5 trilyan haday soo gasho majaalada kala duwan sida kii hore aan ka hadlay kan imika AI-da iyo data-da la calaaqada leh coinka meel sare ay gaari karaan waana tan u leeyahay imika meel sare ay joogaan hala sugo intay soo daadanayaan kadibna halaga faa'iideysto insha Allah tacaala wali xil hore aynu maraynaa fursadaha halaga faa'iido marka coinku ay soo daataan sanad ilaa 2 sanadood kadibna waxaanu arki doonaa insha Allah tacaala meel sare ay ugu gaadhay yarta market cap-kan ka hadlay madhoweed waa kan oo waatan lahaa majaalka dhan marka la eegayo lacagta ku jirta markaan category-ga aynu nimaadno aynu soo doorano category-ga aynu doonayno halkaa aynu ka arkinaa lacagta ku jirta jaalkan gabi ahaan hadda waxaa ku jirta 30 bilyan oo dollar mustaqbalka dhowna AI-da iyo big data waxay la tahay inay soo gali karto lacag gaaraysa 1 trillion dollar oo lacagtaasi hadda bitcoin-ka ay ku jirtaa marka majaal aad iyo aad loo danaynay weeyaan dadkuna ay aad iyo aad u maalgashanayaan haddaynu isla eegno coinka kuwa ugu muhiimsan coinka waxaa ka mid ah oo AI-da la calaaqada leh coinka BitTensor oo runtii coin aad iyo aad u wanaagsana waxaanu yahay coinka kuwa AI-da hogaamiya ee number 1 ka ah haddaad garanaysaa waxa la yiraahdo ChatGPT coinkani wuxuu yahay ChatGPT-da cryptocurrency-ga waxa way coin runtii aad iyo aad u wanaagsan haddaynu ku sii socono waxa ku xiga coinka Near la yiraahdo coin asuguna wanaagsana coinka GRT coinka Render coinka Theta oo asugu ah coinka qadiimka ahaa Fetch AI Singularity Network Akashkana runtii wuxuu la mid yahay coinka Render labaduna waxay ka shaqeeyaan majaalka AI-da waliba gaar ahaan coinka lagu tilmaamay inay yihiin GPU-dana waxaa looga jeedaa kombiyuutarada aadka u powerful-ka ah ee la karaysto haddaynu ku sii soconno waxaa ka mid ah coinka Rose oo kale and Ocean runtii xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisa wax waro ma hayo laakiin mar walba xaraantooda iyo xalaashooda waxaan ka badhnaa hadda jeer groupka la yiraahdo crypto xalaal white paper-koodana marka la eego waxa jira waxyaabo lagu garto coinkan inuu xalaal yahay amba xaraan uu yahay waxa weeye warqad ay ka qoraan mashruucooda wuxuu ku salaysan yahay wuxuu qabto marka taas hadda jeer laga helaa haddaynu ku sii socono waxa ka mid ah coinka Track oo kale coinkan wuxuu yahay coinka cusub ee lagu dul dhisay Bitcoin blockchain-kiisa waxaanu runtii hoos tagaa coinka la yiraahdo BRC20 oo iyagu ah coinan lagu dul dhisay Bitcoin-ka insha Allah tacaala mar baynu ka hadli doonaa coinka Bitcoin-ka lagu dul dhisay iyo in laga faa'iidi karo mustaqbalka dhow waxa ku xiga T-Fuel oo asagu ah token ay sameeyeen qoladan Theta waxa ku xiga Arkham Gulam Bal runtii coinku aad iyo aad bay fara badan yihiin coinan fara badan
oo AI da aan calaaqad la leh ayaa ku jira halkan oo laakiin mashruucoodu soo dhex galo AI da coinka 0x0 NMR NFP haddii sidaa aynu soconno runtii mashaariic aad iyo aad u wanaagsan baynu ka helaynaa oo adduunkan ku noolnahay wax far badan kusoo kordhinaya muhiimadan waxa weeye mar walba coinka markaynu analyze garaynayno amba taxliil aynu ku samaynayno oo doonayno inaynu ka faa'iidno inuu ahaado market capkiisu mid yar oo macquula coinkaasina waa inuu ahaado mid potential leh in mustaqbalka dhow laga faa'iidi karo sida mar walba aynu la taliyana waxa wanaagsan hadda jeer coinka market capkiisa iyo lacagta ku jirta ay yar tahay taana runtii waxa weeye arrin aad iyo aad u adag lacagta ku jirta ay yar tahay potentialka iyo waxqabadka iyo waxay samaynayaan ay kusoo kordhinayaan majaalka cryptocurrency-ga uu yahay mid aad iyo aad u wanaagsan laakiin mar walba wuxuu majaalkan inooga baahan yahay inaynu samayno research fara badan si aynu u soo saarno coinka mustaqbalka meel sare gaari kara oo laga faa'iidi karo coin kale ayaa jira big data marka laga hadlayo runtii aan la ilaawi karin oo asagu ah coinka hogaamiya qaybta big datada amba xog gudbinta iyo informationka la iskugu kala diro marka laga hadlayo blockchainka coinkaasina waxa weeye chainlink ayaa runtii hogaamiye u ah qaybta datada marka laga hadlayo laakiin asagu wuxuu ku jira hadda category kale oo la yiraahdo oracles kaana insha Allah tacaala dhawaan waxa ka soo samayn doona video oo isla eegno majaalka kale coinanka ugu muhiimsan ee laga faa'iido karo ugu dambeyntii akhyaarta haddaynu kusoo gabagabayno labadii coin aan ugu ballan qaaday labada coin waxa kamid ah Newco Cloud waxaana ka shaqeeyaan cloud computingka waliba waxay leeyihiin GPUs la karaysto oo kombiyuutarada powerfulka ee la karaysto weeyaan coinka render ayaa loo barbardhigaa coinka render iyo kan haddaynu isbarbar dhigno runtii waxa u dhexeeya market cap inaba caadi aan ahayn oo haddii lacagta render ku jirta ay soo gasho coinkan meelo sare ayuu gaari karaa financial advice maaha runtii baaritaankiina khaaska sameeya anigu coinkan investor ayaan ka ahay oo waan ku jiraa maadaama low market cap uu yahay runtii waxay noqon kartaa taasi riski marka anigu riskiga diyaar baan u ahay inuu qaato laakiin coin runtii potential la weeyaan baaritaankiina gaarka ini ah inuu ku sameeya oo research ku sameeya coinkan inuu dabcan taas waxa weeye haddaad danaynaysaan inaad maal gashataan coinka ku xiga waxa weeye 0x0 coinkan wuxuu ka shaqeeyaa AI da waliba waxa u dheer inay ka shaqeeyaan qaybta privacy-ga waa coin runtii asna la danaynayo oo maanta waxa ku jira lacag gaaraysa 250 milyan oo dollar coinkana waxa loo badanayaa inuu gaaro $1 billion oo halka 8x ee laga sameyn karo